dabayaaqadii sanadkii tagay 2013 tirsiga Itoobiya ayaa jaamacadda Jiga lagu wareejiyay dhul gaari 450 hektar oo saaran Jiinga Webi Shabeelle. Haddaba dhismaha wajigii koowaad ee deerka jaamacadda Jiga qaybteeda goday oo la dhameystiray ayaa waxaa soo kormeeray mas'uuliyiin ka socotay jaamacadda Jiga iyo mas'uuliyiinta maamulka magaalada goday. Deerkan oo dhan 9 kiiloomitir isku wareeg ayaa waxaa ku baxday adduun lacageedu gaari 18 milyan oo bir. Dr. Muuse Maxamed Yuusuf siduwaha guud ee xafiiska madaxweynaha jaamacadda Jiga, maayir ku-xigeenka maamulka magaalada goday Mudane Maxamed Ibrahim iyo maarayaha adeeg bixinta magaalada goday Injineer Axmed Miraad Layli ayaa mas'uuliyiinta ay taabteen ahmiyadda ay jaamacaddan Jiga qaybteeda goday ay u leedahay magaalada goday iyo gobolka Shabeelle. Deerka uu yahay 9 kiiloomitir iyo feeskii koobaad uu gabagaboobay marka hadda muddo gaaban gudaheeda in la bilaabo feeskii labaad oo ah dhismaha gudaha lagu bilaabo iyo maaragtay ku xigta xaruntuna marka kulli feesas bay leedahay markay dhamaato gabi ahaanba dhul qayb beer laga beerayo qaybna maaragtay ardaydu wax ku baranayaan qaybna practical ay noqonayso runtii maamul magaalo ahaan aad aan u soo dhaweynayno muhiimad weyn oo leh feeska labaad markuu bilowdo runtii waxaan rajaynaynaa in ay dad 400 oo ruux ah ay ka shaqo abuur ka heli doonto feeskaas labaad markii uu dhamaado waxaan kala rajaynaynaa in uu gabagabo feeska labaad in dad 2,000 gaariyana iyaguna shaqo ka helaan oo soo shaqo tagaan. mashruucan oo lacag 8 milyan ay jaamacaddu ku bixisay ayaa hadda waxaa loo socdaa habkii loo fulin lahaa wajigii labaad oo dhismihii goobihii ardaydu wax ku baran lahaayeen goobihii kale ee jaamacaddu ka koobnaan lahayd. sidaan ognahay magaalada goday waa magaalo dhismaheeda infrastructure-keeda la bilaabay isbedelka kadib. waxaynu ognahay in mashruucii biyogelinta soo gabagaboobay, waxaynu ognahay mashruucii inuu socdo dhismaha garoonka, waxaynu ognahay in la bilaabay jidadka waaweynaa ee magaalada ku xireeyay gobolada kale jidka Hargeysa iyo jidka Qalaafo. waxaan isleenahay magaaladu ka dhimanaa waxa weeyaan waa jaamacad weeyaan. waxa kaliya hadda in la helo dhiman yahay jaamacad bay alxamdulillah weeyaan. maantana jaamacaddii in deerkeeda hadda la soo gabagabay dhismihiisii oo rajaynaa dhismaha kale mar dhow inuu bilaabo. marka waxaan rabnaa inaan bulshada magaalada aan halkan fariin uga gudbino aan leenahay macnaha jaamacaddani waa jaamacad yeelanaysa magaalada, xaruntani waa xarun jaamacad Jiga ah oo yeelanaysa magaalada goday. in marka inaynu la imaan lahaansho inaynu inagu ilaashano inaynu soo dhaweyno inaynu ogaano waxa loo dhisay inay tahay bulshada magaalada goday. waxa ka faa'iideysan doona mustaqbalka dhow sida laga dhawaajiyay dad aad u fara badan oo fursado shaqo ka heli doono, arday aan tiradooda la soo koobi karin ba ayagana insha Allah wax ku baran doono. marka waxaan rabnaa inaynu yeelano dareenkii lahaanshaha ee bulsho aynu waxba horumarka ah ee xukuumaddu iyo dawladdu ay ka wada magaaladana inaynu soo dhaweyno oo kaalintii bulshada inuu ka qayb qaadano. ugu dambeyn Saleymaan Mahdi Caydiide oo ah qandaraaslaha mashruucan qaatay ayaa taabtay ay wadaan iyo caqabadaha jira. in mashruucii oo sidii loogu talagalay taya ahaan imigaraasa iyo waqtigii loogu talagalay inaan tayada sidii u dhisno waqtigii loogu talagalay 6 bilood ahaan waqtigii imigaraasa haafkiya inaan shaqadii ku dhameeyno runtii aad baan farxad noogu tahay. waxay maraysaa bulshadii, shacabkii, maamulkii, dadkii inta la sajan qaaday, dadkii ay ogaadeen meesha faa'iido ay ka helayaan. marka maanta dadkii shacabkii way qanacsan yihiin in meeshii magaalada meel dawladdu leedahay oo jaamacaddii Jiga qaybteedii goday ay tahay dadkii way qanacsan. laakiin marka hore dadkeena iska dhib badan waxa suuqa la geliyay dad baa la siinaya dawladdu ma laha. haddii shacab la siinaya boorka lagu ma dhajiyay inta dawladdu ma geliseen. Maxamed Cumar Ceelaabe, telefishinka caalamiga SR TV magaalada goday.